waa arrin aad iyo aad looga murugoodo oo looga xumaado qof kasta oo dub islaamnimo ku taallo, dub soomaalinimo ku taallo, mid afrikaan ku yaallo, mid islaam ku yaallo. waa arrin aad looga murugoodo. gabar yar oo kuu shaqaynayso gurigaaga kaaga shaqaynaysay runtii inaad sidan ula dhaqanto oo dhaqankan xun ee faaxishka ah, waraabanimadka ah, bahalnimadka ah, ee wuxuushnimadka inaad kula dhaqanto. walaalayaal, waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo barnaamij aad u yaab leh. maalinba maalinka ka dambaysa adduunyadu way ka sii daraysaa wax aad ku muruggeliya oo ku walbahargeliya ayaad la kulmaysaa ood arkaysaa. waxa ay samaynayaan waa 2 gabdhood oo Soomaali ah, gabar u shaqaynaysa oo shaqaalahoodii abay sidan u galayaan. runtii xaqiiqatan miyayna arrin xun ahayn? arrinta koobaad ay samaynayaan waxa weeyaan, gabadhii waxay isugu dareen Colgate ba waxay leeyihiin cuntada aad aragtaan ee rootiga meesha taala bay leeyihiin Colgate-kan qaado ku cun, isku cun bay leeyihiin. wallahi waa cajiib. naxariistii waxaad moodaa inay kaba tagtay ayaad moodaa. waa dhaqan xumi runtii xaqiiqatan dhowr jeer ka soo laabatay gabdhaha. waa dhaqan aan aad u xun. gabdhuhu waxay ka calaacalaan kufsi, dhibaatay ka calaacalaan, maalin walba dhibaataa soo gaadha, maalin walba dhibaatay sheeganayaan, raggay u tiiriyaan. laakiin wallaahi runtii xaqiiqatan midda ayagu ay isku hayaan ayaa ka xun. ood aragtaan maanta inay gabdhihii gabar yaroo u shaqaynaysa oo muslimada cidday dooni ha noqoto, afrikaan oo jidhkooda kale leh oo gurigooda ka shaqaynaysa inay isugu daraan Colgate iyo rootiga isku cun inay dhahaan. waa naxariis darro. arrinta kale ay sameeyeen waxaa ka mid ah ood arkaysaan runtii oo daawanaysaan, waxaa ka mid ah inay isugu darayaan dambas iyo rootiga isku cun inay dhahayaan. waxay leeyihiin dambaskan iyo rootigan isku cun bay leeyihiin. arrinta saddexaad ay samaynayaan waxa weeye runtii kaba sii daran, midba midda kale ka daran tahay. waxa weeyaan cuntadii quruurad intay jajabiyaan oo quruuradii laga dhigo ama dhaladii laga dhigo la jajabiyo in la leeyahay cuntada ku cun. miyayna gabdhahani muslim ahayn? miyayna hooyooyin ahayn? miyayna dub naxa iyo dub islaamnimo miyuuna ku oolin? isugu daraya gabadha muslimka ah, waa gabar oramo ah oo u shaqaysa oo wax soo biday oo ayaga u timid. isugu daraya dhalo la jajabiyey ama qaruurad la jajabiyey oo iyagu soo jajabiyeen, iyo waxay leeyihiin iidaan iyo ka dhigo dufankii oo kale ama suugo ka dhigo oo cuntadii rootigii ku cun bay leeyihiin. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. runtii xaqiiqatan waa arrin la yaab leh. waana arrin gabdhaha arrimahay isku hayaan ee dhihi karno waxaa loogu imtixaamayaa inay balaayo kufsata iyo balaayo dhibaataysaba mar walba la kulmaan. marka iyagiisan isu galaan iyagii sidan isu gelayaan ayaa runtii xaqiiqatan balaayo oo dhan ka faa'iidaysatay. arrinta aadka ula yaab kale afraad ay ku sameeyaan gabadhaas waxa weeyaan inay dhahaan gabadhaas caano hallaabay oo dhintay oo aan la isticmaali karin, ama Soomaalidu caanahay baqa u yaqaanaan oo intay baqeen oo kale ee hallaabeen oo la isticmaali karin bay waxay leeyihiin gabadhii ku dhahayaan caanahan iyo isku cun rootigan. waxay leeyihiin gabdhuhu xuquuqdanadii baan u doodaynaa, xuquuqdanadii waa in la helo. xuquuqdiinii idinkaaba duudsinayaba, idinkaaba shaqaalihii guryihiinna joogay sidan u galayaa. xuquuqdiinna xaggeed ka helaysaan? runtii xaqa idinka maqan ood raadinaysaan horta maba garanayno, maba jiraba xaqaasi. laakiin idinkiiba haddaasan isu gelaysaan ood gabdhihii guryihiinna joogay ee muslimka ahaa ee dharkiinna xidhnaa, waxay dhahaan Soomaalidu kor gabdheed ama kor dumar waxba isma dheera. haddaasan u gelaysaan ood u dhibaataynaysaan, yaad ka sugaysaan naxariis? yaad ka sugaysaan inay idin naxariistaan? runtii cajiib cajiib. waa arrin runtii lala yaabo. waa arrin jidhka aad uga nixinaysa weeye. arrinta shanaad ay ku sameeyaan gabadha miskiinta ah ee u shaqaynaysa ee oramada ah ee muslimka ah waxay ahayd oo la yaab ka leh, cuntada ay siinayaan meel fiican mayna u saarine waxay u saareen dacsadda ama bahasha ee guryaha kolkii kabaha lala soo galaya qashinka in loogu reebo loogu talagalay ayay cuntadii u dul saareen. markaasay ku dul cunaysaa ayadoo iidaankeediina aad soo ogaateen Colgate
iyo qaruurad iyo dhalo la jajabiyey iyo caano halaabay inay ahayd. haddana cuntadii waxay u kor saarayaan oo looga dhigayaa miis bahasha dacsadda loo yaqaano ee kabaha iyo qashinka markaad kabaha iska soo bixiso cagaha lagu soo reebto ayaa loo dursaa. si aydan ugu malaynin ayaan intaaba idiin dul joojinayaa, si aydan ugu malaynin khalad waxani inuu yahay laga sameeyey gabdhahan, been abuurad in lagu samaynaya, si aadan ugu malaynin. gabdhaha in badan waxay ku soo celceliyaan runtii raggu markaanu dhibaato annagu samayno toosh bay ku qabtaan, culummadii, dadkii siyaasiyiintii, raggu meel ay joogaanba kuwii wariyaashii way isugu kaana tagaanoo way buunbuuniyaan. laakiin lama arag nin xaaskiisii san u gelaya, xataa hadday xumaan ku sameeyaan iyadoo qarsoon iyagu way ka soo duubayaan. haddana meeqa jeer bay ka dhacday dhulka Soomaaliyeed arrintan arrin lamid ah ay ka dhacday runtii. jidhku ku xanuunayo waad ogtihiin. tii waxaa ka horraysay gabadhii ku samaysay yarayda agoonta ahayd, waxaan u jeedaa cafwan rajada ahayd ku samaysay ee dowladdu markii dambe Somalilan ay wax u qaban jirtay. tii aad ageedeena intay cuntada ka dharagtay tiri inaad idishaan la iigu soo kaadiray, waad i sunaysay, waad i fashay, na maxaa lagu yidhi ee ka soo duubaysay. allahu akbar. dar oo balaayo kale kusii kordhi weeyaane ayadoo dhibaatada walaasheed ku suubinaysa gabadha muslimadda ee dubkeeda leh ee afrikaanka ah ayadoo kale ah ku suubinaysa. maxay leedahay? ilaahay ka cabso. adiguba ilaahay kama cabsanaysidee maxaad gabadha miskiinta u dhihi ilaahay ka cabso? gabadhu maxay samayso ilaahay kaga cabsataa? ilaahay wayba ka cabsanaysaa. dhibaatada aad ku haysa iyo dulmiga aad ku haysa iyo xadgudubka aad ku haystaa wax lala yaabo ah. runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa qofka sidaas samaynaya iyo dumarka caadooyinka iyo dhaqanka xun ee sidaasoo kale ah gabdhaha ku samaynaya, u shaqaynaya, ee kuwa Soomaaliyeed, kuwa Oromo ah, kuwo kaloo muslimiin ah ku samaynaya, inuu ilaahay xaqa fahansiiyo. ciqaabtaana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada ku tusiya ayaguba ilayn gabdhahan masaakiinta ay ku tusinayaane. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. maanta waxaan jeclaystay inaan arrintaas idinla socodsiiyo. xishoonayso, ilaahay kama cabsanayso, xishood ma leh, cid ay ka cabsanaysa ma leh, caqli reeba ma leh. gabadh miskiin ah oo ayadoo kale oo u shaqaynaysay ayagoo welibana laba ah, ayagoo laba ah baysan samaynayaan. haddana arrinta faaxishadee ka sii xun waxaa ka mid ah ay samaynayaan ayagii baa iska duubaya. ilaahay baa ku qabanaya, li'anna haddayna duubi lahayn lama ogaadeen. laakiin duubitaanku wuxuu u noqonayaa miskiintaasoo laga yaabo in badan inay khaladaad ku sameeyeen, inuu khaladka ilaahay intii la dabagalo dowladaha iyo dadka muslimiinta meesha joogaan dabagalaan inay arrintaa ka yoolgaaraan, lasoo qaqabto, sharcigana la hor keeno. intaasaan jeclaysay maanta inaan idinla wadaago, li'anna inagu mar walba waxaan diyaar u nahay gabadha la kufsanaya inaan ka murugoonno, oon ka hadalno, oon ka wacyigelinna dadka. horumarka ay dadkeennu gaaraan inaan soo bandhigno gabadha muslimadda ah miskiinta ah shaqaalaha guriga saasoo kale loogu cadaabaya, ama nin ha ku cadaaba ama naag ha ku cadaabtee, inaan soo bandhigno shacabka u iftiimino dadkaas si loo hor keena sharciga. waxaasaa u samaynaynana waxa weeye horumar in la gaaro oo laga tallaabsado dhaqan xumida iyo dhaqanka islaamka ka soo horjeeda. jazaakum allahu khayran. intaas ayaan idinkaga tegayaa.